السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا تاني waa qisada dhabta ah ee Jackman. kaliya markii aan jiray 40 sano waxaan ogaaday waxaan doonayay inaan sameeyo waligay kuma aanan fakirin inaan noqon doono nin ganacsada ah sidoo kale waligay kuma aanan fakirin inaan noqon doono nin macallin ah xitaa ganacsada kuma fakirin inaan noqon doono iyo dhammaan waxyaabaha kalaba askari baan damcay waa la iga soo diiday waxaan damcay inaan muddo ka noqdo hotel KFC laakiin duca la igu daray dhammaan riyooyinka aad ku fakatid maaha kuwa wada shaqaynaya dhamaantood ha isku day inaad noqoto kan ugu fiican laakiin isku day inaad noqoto kan ugu horeeya shaqo abuur noqo kan ugu horeeya bedela noqona kan ugu horeeya caqabada wajaha noqo kan ugu horeeya ka hortaga wax walba adag kan ugu horeeya ugu fiican ayaa Olympic championka umalayn maayo inaan ahay qof aad u nasiib badan si aan u noqdo nin taajir laakiin inta badan waxaan isku dayaa inaan keeno waxyaabo cusub hays dhiibin waxaad ma aamintaa inaad tahay qof ka duwan dadka kale qof kasta uu ka duwan yahay dadyoga kale inaad naftada aamintin oo furaha guusha adduunyada inaynu imka joogno waxa ka buuxa qabada iyo jaanisyo 2000 oo sano ka hor waxay ahayd mid caqabada badan oo fursado badan waxaan huba 2000 oo sano ka bacdi inay noqon doonto mid caqabada badan oo sidoo kale fursado badan waxay caqabaduhu badanaa ku xiran yihiin ama fursaduhu sidaad adigu u eegto laga yaabaa inuu qof u arko caqabadan fursad dhalinyarada qaar baa oranaya wax fursadihi ma jiraan waan ka caban jiray anigu markii aan yaraa in badan sababtoo ah waxaan u maleynayay inuu ninka Bill Gates leeyahay qaatay fursadihii oo dhan ee shirkadda Microsoft iyo ninka leeyahay Steve Jobs ama raggaas oo dhan ma jiraan wax weyn waxa uu naga tagay shaqaale oo kaliya laakiin badanaa fursaduhu waxay ka been sheegan caqabadaha in badanna waxay ka been sheegan cabashooyinka haddii aad tahay mid xallin kara dhibaatada ama caqabada waxaad noqon doontaa mid guulaystay markastoo aad xalliso caqabada ka hortaagan waxa markastoo aad hesho fursad waxaan u maleynayaa nolosha inay socdaal tahay adduunka shayga kaliya aad u timaayay inaad noqoto qof caafimaad qaba faraxsan aad noqoto mid noloshiisa ku faraxsan oo ku raaxaysta markii aad adduunka ka tagaysid aad dhimanayso waxaad noqon doontaa qof faraxsan ilaa lacag badaysataa waxaan ahay nolosha qof caafimaad qaba haddii aadan caafimaad qabin ma tihid qof faraxsan waxyaabaha kaliya ee bini'aadamku raadiyaan ayaa caafimaad iyo farxad waxaan noo maleynayaa 30 sano ee soo socota sababtoo ah tiknoolajiyada inay bedeli doonto barashada nolosha si loo bedelo wax badan bini'aadamku waxay doonayaan inay noolaadaan wax badan inaad nolosha in badan noolaataa macnaheedu maaha inaad tahay qof caafimaad qaba markaasi haddii aadan ahayn qof caafimaad qaba sidee baad ku noqonaysaa qof faraxsan subscribe fakar channel share and like